ciidamada ayaa hareeraha kala duwan sida hareeraha kala duwan hotelka ku sugan waxaana maqlaysaan daryanka rasaasta waxa hadda soconaya daawadayaal dagaal u dhaxeeya labada dhinac daawadayaal waxaan idinkala soo hadlayaa meel tilaabooyin yar u jirta hotelka la weeraray oo Villa Rosa oo ku yaala dhabarka dambe ee madaxtooyada halka dalka looga arrimiyo waxa hadda ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya qaybta hadda hotelka ku jirta ay ku howleeyeen raadinta xubno ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaas oo ilaa hadda ka dhex dagaalamaya gudaha hotelka ciidamada ayaa hareeraha kala duwan sida hareeraha kala duwan hotelka ku sugan waxaana maqlaysaan daryanka rasaasta waxa hadda soconaya daawadayaal dagaal u dhaxeeya labada dhinac ku dhawaad 20 saacadood waxa gudaha hotelka Villa Rosa ku dhex dagaalamaya xubnihii al-shabaab ka tirsanaa ee weerarka soo qaaday ee ciidanka dawladda Soomaaliya qasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay weerarkan waxaana ilaa hadda gudaha hotelka ka dhacaya hubka noocyadiisa kala duwan kuwaas oo isku adeegsanayaan kooxda weerarka soo qaaday ee ciidamada dawladda lama ammaanka dawladda ayaa Somali Cable u sheegay in xubno yar oo ka tirsan kooxda al-shabaab ee weerarka soo qaaday ay ku harsan yihiin gudaha hotelka isla markaana dhawaan ay soo afjari doonaan xaaladda hotelka la weeraray ayaa ah mid aad u kacsan waxaana wali la maqlayaa daryanka rasaasta iyadoo ay xusid mudan tahay in guriyihii ka agdhawaa hotelka la weeraray gebi ahaanba faaruujiyeen dadkii deganaa kuwaasoo naftooda la cararay hotelkan oo aan ka fogeyn kontaroolka dhinaca Boondheere ee laga gala madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa deganaa madax ka tirsan dawladda Soomaaliya waxaana markii la weeraray ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaas oo ugu horeeyay wasiirka amniga Soomaaliya kooxda al-shabaab oo ku caan ah dilalka iyo qaraxyada Soomaaliya ka dhaca ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan dhawaqa jugta culculus iyo rasaas goosgoos ah ayaa laga maqlayaa gudaha hotelka Villa Rosa oo ah dhismo aad loo ilaaliyo isla markaana ku dhow gidaarka dhinaca bari ee dhismaha madaxtooyada Soomaaliya hotelka oo xalay fiidkii ururka al-shabaab ay ku qaadeen weerar ku bilowday qaraxyo ayaa ilaa iminka waxa la maqlayaa rasaas ka dhaxdhacaysa gudaha hotelka muddo 15 saacadood ku siman waxa la maqlayaa dhawaqa rasaasta oo ka dhacaysa gudaha dhismaha hotelka Villa Rosa waxaana la soo daadgurayay dad badan oo isugu jira shacab iyo mas'uuliyiin hay'adaha dawladda ka tirsan dhimasho iyo dhaawac aan la shaacin tiradeeda ayuu sababay weerarka hotelka waxaana ka mid ah dadka ku dhaawacmay wasiirka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Maxamed Sheekh Axmed Cali Doodishe xilliga uu dhacayay weerarka hotelka Villa Rosa waxa hotelka ka soconayay shirar ay lahaayeen siyaasiyiin mas'uuliyiin ganacsato iyo qaybaha bulshada kuwa oo ka soo jeeda gobolka Gado sida ay noo xaqiijiyeen xubno aan la hadalnay ciidamada hay'adaha ammaanka dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa gaashaan ee nabad sugidda Soomaaliya ayaa saaki gudaha u galay dhismaha hotelka oo wali kooxihii dagaalka ku soo qaaday ay ka dhex dagaalamayaan waxaana la maqlayaa dhawaqa rasaas goosgoos ah iyo jugta bambaanooyinka afayeenka booliiska Soomaaliya Colonel Sadiq Aadan Doodisho ayaa xalay saxaafadda u sheegay in ciidamada ammaanka ay howlgalka wadaan gudaha hotelka Villa Rosa isla markaana la soo badbaadiyay dad isugu jira shacab iyo mas'uuliyiin 20kii bishii Agost ayay ahayd markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen hotelka Xayaad oo ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho weerarkaasi oo sababay dhimashada 20 qof ee tiro intaasi ka badan oo dhaawac ah 29kii bishii tagtay October ay ahayd markii laba qarax oo waaweyn al-shabaab ay ku soo weerareen dhismaha wasaaradda waxbarashada oo ku yaala isgoyska Zobe waxaana la sheegay in ay ku geeriyoodeen dad ka badan 120 qof boqolaal kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen halka 10 qofna raq iyo ruux naftooda ilaa iminka la laayahay ma jirto wax war oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya oo ku aadan weerarka qasaaraha dhaliyay ee ilaa iminka ka soconaya gudaha hotelka Villa Rosa ee magaalada Muqdisho ciidamada ayaa hareeraha kala duwan sida hareeraha kala duwan hotelka ku sugan waxaana maqlaysaan daryanka rasaasta waxa hadda soconaya daawadayaal dagaal u dhaxeeya labada dhinac
daawadayaal waxaan idinkala soo hadlayaa meel tilaabooyin yar u jirta hoteelka la weeraray oo ah Villa Rosa oo ku yaala dhabarka dambe ee madaxtooyada halka dalka looga arrimiyo waxaa hadda ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya qaybta hadda hoteelka ku jirta ay ku howleeyeen raadinta xubno ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaas oo ilaa hadda ka dhex dagaalamaya gudaha hoteelka ciidamada ayaa hareeraha kala duwan ee sida hareeraha kala duwan ee hoteelka ku sugan waxaana maqlaysaan daryanka rasaasta waxa hadda soconaya daawadayaal dagaal u dhaxeeya labada dhinac ku dhawaad 20 saacadood waxaa gudaha hoteelka Villa Rosa ku dhex dagaalamaya xubnihii al-shabaab ka tirsanaa ee weerarka soo qaaday ee ciidanka dawladda Soomaaliya qasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay weerarkan waxaana ilaa hadda gudaha hoteelka ka dhacaya hubka noocyadiisa kala duwan kuwaas oo isku adeegsanayaan kooxda weerarka soo qaaday ee ciidamada dawladda lama ammaanka dawladda ayaa Somali Cable u sheegay in xubno yar oo ka tirsan kooxda al-shabaab ee weerarka soo qaaday ay ku harsan yihiin gudaha hoteelka isla markaana dhawaan ay soo afjari doonaan xaaladda hoteelka la weeraray ayaa ah mid aad u kacsan waxaana wali la maqlayaa daryanka rasaasta iyadoo ay xusid mudan tahay in guriyihii ka agdhawaa hoteelka la weeraray ay gebi ahaanba faaruujiyeen dadkii deganaa kuwaasoo naftooda la cararay hoteelkan oo aan ka fogeyn kontaroolka dhinaca Boondheere ee laga gala madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa deganaa madax ka tirsan dawladda Soomaaliya waxaana markii la weeraray ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaas oo ugu horeeyay wasiirka amniga Soomaaliya kooxda al-shabaab oo ku caan ah dilalka iyo qaraxyada Soomaaliya ka dhaca ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan dhawaqa jugta culculus iyo rasaas goosgoos ah ayaa laga maqlayaa gudaha hoteelka Villa Rosa oo ah dhismo aad loo ilaaliyo isla markaana ku dhow gidaarka dhinaca bari ee dhismaha madaxtooyada Soomaaliya hoteelka oo xalay fiidkii ururka al-shabaab ay ku qaadeen weerar ku bilowday qaraxyo ayaa ilaa iminka waxaa la maqlayaa rasaas ka dhaxdhacaysa gudaha hoteelka muddo 15 saacadood ku siman waxaa la maqlayaa dhawaqa rasaasta oo ka dhacaysa gudaha dhismaha hoteelka Villa Rosa waxaana la soo daadgurayay dad badan oo isugu jira shacab iyo mas'uuliyiin hay'adaha dawladda ka tirsan dhimasho iyo dhaawac aan la shaacin tiradeeda ayuu sababay weerarka hoteelka waxaana ka mid ah dadka ku dhaawacmay wasiirka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Maxamed Sheekh Axmed Cali Doodishe xilliga uu dhacayay weerarka hoteelka Villa Rosa waxaa hoteelka ka soconayay shirar ay lahaayeen siyaasiyiin mas'uuliyiin ganacsato iyo qaybaha bulshada kuwa oo ka soo jeeda gobolka Gado sida ay noo xaqiijiyeen xubno aan la hadalnay ciidamada hay'adaha ammaanka dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa gaashaan ee nabad sugidda Soomaaliya ayaa saaki gudaha u galay dhismaha hoteelka oo wali kooxihii dagaalka ku soo qaaday ay ka dhex dagaalamayaan waxaana la maqlayaa dhawaqa rasaas goosgoos ah iyo jugta bambaanooyinka afhayeenka booliiska Soomaaliya Kornel Sadiiq Aadan Doodisho ayaa xalay saxaafadda u sheegay in ciidamada ammaanka ay howlgalka wadaan gudaha hoteelka Villa Rosa isla markaana la soo badbaadiyay dad isugu jira shacab iyo mas'uuliyiin 20kii bishii Agost ayay ahayd markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka Xayaad oo ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho weerarkaasi oo sababay dhimashada 20 qof iyo tiro intaasi ka badan oo dhaawac ah 29kii bishii tagtay October ay ahayd markii laba qarax oo waaweyn al-shabaab ay ku soo weerareen dhismaha wasaaradda waxbarashada oo ku yaala isgoyska Zobe waxaana la sheegay in ay ku geeriyoodeen dad ka badan 120 qof boqolaal kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen halka 10 qofna raq iyo ruux naftooda ilaa iminka la laayahay ma jirto wax war oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya oo ku aadan weerarka qasaaraha dhaliyay ee ilaa iminka ka soconaya gudaha hoteelka Villa Rosa ee magaalada Muqdisho